waa saq dhexe, u madow, u aamusan sida xabaasha. Cimiladu ku bushaarayn mayso barwaaqo iyo rayrayntoonna, oo waa jilaal abaar baani jirto. Habaas engegan iyo dhaxan lafaha xulaysa ayaa caawa dadkii ku xakamaysay buulashooda. Se taasi kuma cusba dhaayaha reer guuraaga iyo dubkoodaba. Hakadna gelin mayso habsocodka noloshooda. Oo waa cimilo ay ku garaadsadeen, ku weynaadeen, ku tagfiirmeen, oo markii dambe u qaateen dhaxal ahaan. Daaqadda qolkayga waxaa ka soo galaysa dabayl dhas iyo qabow isku darsatay. Waxa ay daandaansanaysaa oo ay isleedahay iska hor leexi malaha, oo ay marba ka baf siinaysaa daaha adag ee uskaga ah ee ka sokeeya daaqadda biraha daxalaystay ka unkaan. Se maxay kaga soo socotaa qolkan madow ee ay lafteedu ku lumayso? Maxaa uga biiraya in ay derbiyada dahaadhku ka xoqmay ay marba mid isku wabsiiso? Ma waxa ay caddaynaysaa dabayshaas kolba koone ka soo cidhiidhsanaysa daaqadda daxalku ka kormaray micno la'aanta jiritaanka iyo jiritaanka dabiicadda? Mooyi! Waxa aan dhanka midig u dul jiifaa sariirtayda rukunka laabatay oo aan ku dadanahay buste rifan. Xanuun iyo kaar iga haya lugta bidixna aan la dhareerinaya oo aan lawyaha iyo gadhka isku la jiraa si aan dugsi dheeraad ah u dareemo. Waayihii igu bilicsanaa jiraalkayga carruurnimadaydii bilaa dembiga ahayd ayaa aan ka dhex daawanayaa gidaarkan uu doorsoomay ranjigii la mariyey goor aan hadda xasuusan goortii ay ahayd. Waxaa marba iiga dhex shidmaya gidaarkan aad moodo in uu qolof dhacsanayo jajabka ka muuqda awgii cajalado aan u riyaaqo se dhammaad iga ilmaysiiya ku soo gunaanadma. Cuqdad iyo xaalad xun oo aan ka nabdoonaa igu suga. Sida oo kale waxaa jira cajalado aan ka caagay daaridooda oo ciwaankoodu ii sababayo xaalad nafsi. Xaalad nafsi. Oo haddaan ka ahaa atooraha jilaya waayaha ku duuban cajaladaas, ma xaalad nafsi ayaa ii dhiman. Mooyi! Ma rabo in aan maleeyo xataa. Haddana dhanka bidix ayaa aan isku rogay oo aan gacanta bidix ku tiigsaday taleefankayga badhamadiisu qaar ka mid ahi ay daateen shaashadiisuna kala dhamban tahay oo aan indhaha ku fagiigay goor sheegtu wakhtiga ay tilmaamayso. Waa 2dii habeennimo. Waxaa igu faral ahayd in aan fiid seexdo. Berri safar dheer ayaa i sugaya. Indhaha ayaa aan si qasab ah isku geliyey, bustahana madaxa gashtay. Si aan dugsi dheeraad ah u helona, jidhka oo dhan ayaa aan isku soo kojiyey. Se hurdo iyo luloba waa aanu kala lunnay. Waxa aan isku qanciyey in aan dib u xasuusto waayo hore, oo maaweelo aan ku seexdo, aan ka dhigto. Waxa aan soo xasuustay berigii ay Khadiijo ku cusbayd dugsigeenna mataan. Isku dayadii koowaad ee aan isku dayo in aan Khadiijo shukaansado. Waa aan ogaa in deegaankaygu iyo dadkayaguba aysan macquul la ahayn. Duufaan dadka igula nool waxa aad mooddaa dad laga unkay dhadhaab. Naxariista agtooda waa ka ceeb, gaar ahaan haddii aad tahay lab. Ixtiraamka iyo xushmaddu agtooda waa ka xaaraan, gaar ahaan haddii aad tahay aadane. Aqoonta iyo garashada dheeri waa astaamaha lagaga sooco dadka cidda waalan. Dharka waaweyn iyo gadhka dheerina iyana waa astaamaha dadka lagaga sooco malaga adduunka ku garbabeelay. Odayada iyo habraha asaasaqa ah ee maskaxdooda iyo maankoodaba kaga yimid qarniyadii ay awoowayaashood noolaayeen waa haldoorka iyo cidda ka talisa aayaha ummadeed. Cidda dhaqanka iyo sooyaalka dadka uga warantaana waa isla odayadii iyo habrihii asaasaqa ahaa. Dhaqan. Horta maxaa ay dhaqan u yaqaanaan? Dhaqankoodu waa dhaqanka lagu yaqaan aadanaha duurjoogoobay. Waxa aan u booday cajaladda xigta maadaama oo aysan tii hore i cajabin. Waxaa ii soo baxday berigii. Kolkii aan sii horumariyey tabaha aan ku shukaasan karo Khadiija. Ma xasuusan karo wixii ku qornaa warqaddii aan u geliyey khaanadeeda buugta. Se waxa aan xasuustaa in aan yaqiinsanaa in ay iga aqbali doonto xidhiidhkaas. Maya in iyaduba ay danaynayso mise danaynaysayba in aan u soo bandhigo xidhiidhkaas. In ay og tahay in aan ahay ardayga ugu sita haddii ay noqoto xag muuqaal iyo xag garaadba, in ay og tahay ayaa aan naftayda ugu sheekeeyey. In aanan u dhigmin xirsiga kol kasta ku dhammuuqan oolyada geerashka walaalkii in aanay i barbardhigi karin ayaa aan naftayda kibir ugu biiriyey. In aan ka dhibco sarreeyo Mustafaha foolashalla ee xariifka isku haysta ayaa aan ku isku niyad wanaajiyey. Oo kaas maxaa aanba kala ficiltamayaa? Soota maamulaha u sheegtay in uu marba warqad xun u geliyo khaanada buugteeda oo 2 isbuuc laga ganaaxay waxbarashada. Kaas sinaba uma dhigmo. Haddana waxa aan sawirtay maalinkii xilligii rawaxaadda kolkii uu jelas ku dhacay in ay i sugaysay ku bannaanka si ay iiga codsato in aan u soo qoro casharkii maaddada xisaabta ahaa ee doraad dhaafay. Oo maalinkaas ma aysan joogin dugsiga oo malaha waa ay xanuunsanayd. Ma caddayn karo taas oo waxa aan xasuustaa in aan soo agmaray maalinkaas waddada ag marta gurigooda. Xilli ay ahayd abaaro 8 aroornimo aniga oo habsan ah.
Waxa aan arkayay iyada iyo Aasiyadii ay isku fadhiga ahaayeen oo kaabadda ka hor dhisan xaafadda Khadiija wada fadhiya. Qosolkooda iyo sheekadoodana humaaga ay bixinayaan waa uu ka dheeraa xanuun. Se maxaa iga galay arrimaheeda shakhsi? Laga yaabee in ay soo booqatay saaxiibaddeeda oo xanuunsanayd oo ay u maadaynaysay oo ilowsiinaysay kaarkii markaas kurbinayay. Laga yaabee aniguna in aan qaatay muuqaalka duleed oo aan dhugan xaaladda u qarsoon Khadiija. Waxa aan dhoolo caddayn dibnaha la kala qaaday aniga oo indhaha isku haya kolkii ay murdisadeeda iyo fardhexadeeda dhexdooda ay sankayga dhankeeda u jidday iyada oo leh warsame bal intaas uun si wanaagsan iigu soo qor waa aad og tahay in 10 kale ay 11 yaalaane. Dhoolo caddayna xasuustayda ayaa ay ku sii sawirtay. Oo ma ilaawo dibnaheedii dhuxuliga ahaa ee aniga dartay u kala qaadanaa. Haddana waxaa iska soo dabadaatay xasuusihii galabta. Waqti kooban kadib, kolkii aanu xidhiidh yeelannay. Waxa aanu xalay go'aan ku gaadhnay in aanu berri galab magaalada bannaankeeda waqti ku soo wada qaadanno. Gaar ahaan agagaarka beeraha cidlada ee ku ag dhow baraha dhismuhu ka socda ee ku yaalla duleedka magaalada. Annaga oo og wax ka dhalan kara. Waxaa ka suurtoobi kara reer guuraa indho iyo dhego xidhan. Reer guuraa hadda uun magaalo soo galay. In gacalisadayda tolkeed ku xukumo karo dil. Ayna labayn karto aabbahay oo bixiya wixii uu soo aruurinayay ilaa goortii uu go'aansaday in uu wax tabcado. Sababta oo ah magaaladayada duufaan lagama yaqaan wiil iyo gabadha wada socda, gaar ahaan haddii ay isgeeyaan. Jacaylku ama dareenka ka helitaanku waa caddaymo ka mid ah in wadkaagii soo dhowaaday. Badanaa haddii la arko wiil iyo gabadha wada socda, waxaa loo maleeyaa in ay yihiin walaalo ama ugu yaraan dad aanan isgeyin. Balse waxa aad hoogtay kolka la ogaado in gabadha aad wada socotaan aydin waxba isku ahayn. Waxa aad noqonaysaan maalmaha soo socda sheekooyinka iyo xanta la isku gudbiyo. Dadka laga yaso magaalada ee la quudhsado kolka la xamanayo. Si foolka fool ah ay loogu xuubsiibo. Ilaa ay soo gaadho xantaasi guryihiinna. Kadibna ciqaabta ugu xun la mariyo gabadha oo mararka qaar noqon karta dil. Wiilka xukunkiisu se waa uu ka sahlan yahay ka gabadha oo waxaa lagu soo gunaanadaa ceebtaas dhacday xaal la isdhaafsaday. Oo reer duufaan waxa ay aaminsan yihiin haddii ay labo is-shunkaansato in dhexdooda aanay ka madhnayn xeer jebin. Sidaa darteedna gabadhu ay u soo jiday reerkeeda sharaf xumo iyo wejimadoobaad oo ay mudan tahay in ay iilka ku sugto qiyaamaha. Laakiin wiilku waa boqole loogu talagalay xeer jebinta sidaas daraaddeedna aanu mudnayn dil. Se xeer jebinta waa in uu u quudhaa hantidiisa. Maxay kaga duwan yihiin xayawaanka? Xataa xayawaanku sidaas uma dhaqmo. Se waxa aanu nahay in dhoolayaal necab in ay u indho furnaadaan waxyaabaha dhibaya. Oo waxaa inaga suurtowday in aanu ballanno galabtii maanta. 4 galabnimo. Qiyaas ahaan waa 4 galabnimo. Qorraxdu waa in yara kulushahay. Ma caddayn karo taas oo dadka ka soo dareeraya masaajidka keligay ayaa ka dhididaya. Ma cayilni se waxaa warwar igu haya waxa galabta dhici doona. Waddooyinku waxa ay u badan yihiin cidlo oo galabkii reer duufaan waxa ay ku dhan yihiin maqaaxiyaha. Oo salaada casar marka laga soo dareero dadku wax ay u kala jabaan qaar xaafadahooda u shaah taga iyo qaar maqaaxiyaha doorbida. Waxaa magaalada koonayaasheeda ku hareeraysan daruuro aan dhexdeeda soo gaadhsiinayn. Waxa ay u eeg yihiin in ay hadda isku soo aruurayaan si ay u hooraan. Sida oo kale ma caddayn karo in ay diiq doonaan oo kuma niyad sami in uu roob ku soo beegmo galtan. Waxoogaa waxa aan ka shaqi qabay in ay oofin doonto ballantii xalay aanu ku kala tagnay markii aanu wada joognay luuqa ka dambeeya guriga reerka Khadiija iyo in ay baaqan doonto. Ta dambe ayaa uu malahaygu u badanaa. Oo waxa aan isku qanciyey in ay xalay ka ahayd uun niyad wanaagsanaan. Waxa aan isdiidsiiyey in ay ismiidaamin doonto oo ay u oggolaan doonto arrinkaas uun xiisayn aanu xiisaynayno wada joog. Haddana waxaa ii madax maray dareen intaasba kulid ah. In ay wax kasta samayn karto Khadiija. Waxa aan isweydiinayay haddii la ina qabto wixii aanu samayn lahayn. Tolow maxa aan samayn lahaa haddii uu aabbaheed u dili lahaa in ay aniga ila joogtay. Geerideedu maxaa ay macne ii samayn lahayd? Ma aniga dilay haddii aan sababta leeyahay. Iyadu maxaa ay nafteeda u hurtay? Ma jacayl uun. Oo naf iyo jacayl ma isu dhigmaan? Dareen ruux iyo dareen qudhgoyn maxaa ka dhaxayn kara? Mooyi. Sidii aan u soo luudayay aniga oo isla sheekaysanaya waxa aan soo gaadhay qolkaygii. Waxa aan dhabarka isugu tuuray sariirtayda alwaaxa ka unkaan. Aniga oo fakaraya oo ku murmaya tolow armaad gabadhaas u horseedaa wax aysan kaa mudnayn. Maya, labadiinuba waa aad isla qabaysaan dhibaatada ayaa uu u soo dhacay, taleefankaygu si naxariis darro ah.
Judy aan la soo booday taleefanka oo aan u eegay shaashada kala dhambalan iyo qofka isoo wacayaba si ay karaahiyo ku milan tahay, ayaa aan halmar iska waayey aan fariirkii wadnaha i istaajin gaadhay. Cid kale ma aha waa gacalisadaydii Khadija. Waxa ay i weydiinaysay in aan diyaar ahay, iina sheegtay in ay soo baxday oo ay laamigii aanu ku ballansanayn in aan iskugu nimaadno ay hadda cagta soo saartay. Runtii sidaas kama aan filayn Khadija. Ismiidaamintaas see waa ay dhacday. Inta aan sariirta ka booday ayaa aan u sheegay in aan hadda qudhayduba aan soo baxay oo aan rabay in aan hadda waco. Waxa ay igu boorisay in aan wakhtiga ilaaliyo si aanay jidka iigu sugin. Aniguna waxa aan ugu niyadejiyey in aanan soo daahi doonin oo aanu mar ku wada kulmayno laamiga. Waxa aan u labistay si aanan weligay u labisan. Dharkayga qaar ma xidhan jirin oo waxa ay u badnaayeen midabo soo jiidasho leh. Midabka jidhka qofka soo saaraya, gaar ahaan haddii uu qofku cas yahay. Kuma wanaagsana in lagu dhex xidho magaalo duufaan oo kale ah. Se galabta waa aan buriyey malahaygii noocaas ahaa oo aan xidhay. Cadar uu aabbahay leeyahay oo aan aad u jeclaa urkiisa ayaa aan isugu qooyey sidii qof roob jidka ka soo helay. Aniga oo guclaynaya ayaa aan guriga ka baxay. Waxa aan sii maray dukaan lagu iibiyo macmacaanka. Waxa aan ka soo iibiyey 2 ka mid ah shukulaatada ay jeceshahay Khadiijo. Waana sabab ka mid ah sababaha aanu isku jeclaanay. Oo waxaa jira dabeecado aad u badan oo aanu wadaagno Khadija oo fududaysay in aanu marba isfahanno. Aniga laamigu iga ma foga oo waxaa iga xiga dhowr sakadood. Se iyadu waxa ay soo qaadaysaa dhabo aad u dheer oo ku qaadaynaysa ilaa 30 daqiiqo. Marba haddii aan soo degdegayna waxa aan ku qasbanaaday in aan daydaydo meel aan ku sugo. Kaabad ku hortaala guri laga guuray oo ku beegan waddada ay soo marayso Khadiija ayaa aan fadhiistay. Kaabad aan sidaas u fadhiisto waxaa iigu dambaysay yaraantaydii markii aan dugsiga hoose ahaa. Waayihii aan ku sugi jiray asxaabtaydii aanu isku ayniga ahayn. Ciyaartii iyo kaftankii aanu isku tuuri jirnay, isbaacsadkii iyo iscarayntii, qosolkii iyo dacaayadii, ayaa igu geedaantay u hilow waayo aan soo laabanayn. Tolow xikmadda uu Alle ka leeyahay in aadanuhu maro xaalad korriimo ma in ay qayb ka qaadan doonto ku noolaanshaha nolol wanaagsan baa. Waa ay ila tahay. Hadda xilligan, kaabad fadhiisigu waa sumad ku yaqaano dadka aan sumcadda wanaagsan ku lahayn deegaanka. Oo badanaa marka ay isku aruursato dhalinyaro kaabad, dadka maraya jidka kama ammaan helaan siiba gashaantiyaha. Sida oo kale haddii la arko nin fadhiya kaabad guri, goortuna ay tahay xilli uu gabalku dhacayo, waxa ay u badnaan tahay in ninkaasi yahay tuug ugu yaraan. Sidii aan kaabadda u fadhiyey oo muranba muran igu dhiibayey, xasuusiba xasuus iigu tuqaanaysay, waxaa si aanan filayn hortiyada uga soo muuqday saaxiibkay guri oo ah mid ka mid ah asxaabtayda dugsiga aanu isla dhiganno. Walow uuse hadda dhigto dugsi kale. Inta uu ii dhoolo caddeeyey ayaa uu igu soo leexday. Aniguna dhoolo caddayntiisaas waxa aan ku fasirtay in uusan weligii iigu arag aniga oo kaabad fadhiya. Maantana ay wuxuun igu kalifayaan in aan kaabad fadhiisto. Taas oo igu beertay naxdin iyo niyad jab. Cabbaar ayaa aanu isxaal waraysanay oo uu iiga sheekeeyey qaabka uu u shaqeeyo dugsiga cusub uu hadda u wareegay. Maskaxdaydu ma joogto oo waxa aan eegayaa jidka ay soo socoto gacalisadidu si aan markaas cudurdaar ugu sameeyo. Dibnaha uun ayaa aan waxoogaa kala durkiyey si uu u moodo in aan sheekadiisa la dhacsanahay. Madaxna si joogta ah ayaa aan u ruxayaa si aan ugu ekaado nin si fiican u dhagaysanaya sheekada. Laakiin indhahaygu iyo maankayguba meel kale ayaa ay howlgal ka wadaan. Guray ma aha dadka deegaankan u dhashay ee cuqdada miidhan ah. Sida oo kale weligay ma arag isaga oo qof kale la xamanaya qof kale oo saaxiibkiis ah. Walaalkiisa ka weyn oo duufaan shaqo macalinimo u soo doontay ayaa ka soo kaxeeyey deegaankoodii Itoobiya sababo la xidhiidha in isaga iyo walaalkiisa ka yar ay qalqaaliyiin ahaayeen. Oo waxoogaa waalidkood oo dad ah ayaa ay isku cakirmeen. Cabbaar markii aanu wada sheekaysanaynay ayaa uu i weydiiyey waxa aan meesha ka qabanayo. Aniga oo raba in aan su'aashiisa si been ah uga warceliyo, waxa aan meel wax badan inaga fogeyn ka halacsaday Khadiija oo tallaabada tartiibisay markii ay aragtay in qofi ila fadhiyo. Waxa aan si hoose ugu sheegay guray sababta aan meeshan u fadhiyo iyo in dumaashidiis ay hadda ina soo hayso. Isaguna markiiba waa uu dhaqaajiyey isaga oo dib ii soo eegaya oo ku qoslaya malaha in aan xilligan ballan la leeyahay gabadh. Waxa ay soo gaaray bartii aan ku sugayay. Salaan kadib waxa aanu jaanta u jeedinnay dhanka koonfureed ee duufaan. Wadahadalkayagu waxa uu ku ekaa su'aalo ku saabsan waddooyinka cidlada ah meesha ay inaga xigaan oo niyadayadu ma degana. Sidii in aanu baxsadnahay ayaa aanu 4 jiho indhaha iyo maqalkaba u qaybinnay.
Kolka aanu meel dheer ka aragno dad ama qof soo socda, waa aanu kala horaynaa si aan ina loo moodin in aanu wada soconno. Kolba waxa aanu eeganaa waddada aanu ku tuhmayno in raadkeedu yar yahay. Kolka aanu maskaxda ka daalno, waxa aanu maciinsanaa duco iyo in Alle inaga duwo indhaha bahalada naxariista laga gudhiyey. Waxa aanu soo ruqlayno oo aanu wadnaha farta ku qabanno, waa aanu soo gaadhnay ugu dambayntii meeshii bannaanka ahayd. Goobtan aniga ayaa soo sahmiyey horaantii, oo waxaa ku dhow dugsigayaga mataan. Xilliyada nusu saacahana loo soo fasaxo ayaa aan halkan ku nusu saaceeyaa keligay. Waa meel deggan oo raadka dadku ku yar yahay. Waxaa ka dhisan sees guri oo qaab wanaagsan u dhisan. Waxaa ku dhow bali loo soo dabaal tago kolka uu cidhfaha ka burqanayo. Se hadda waa jiilaal oo roobba lama fisho xilli gooreedkan. Dhankaas bari waxaa jooga dhalinyaro kubad ciyaaraysa. Laakiin aad ayaa ay inooga fog yihiin oo waxaa inoo muuqda humaagooda. Saddexda jiho ee kale waa bannaan iyo dhul uu dhisme ku socdo. Aniga iyo iyada uun ayaa aadane ka ah walxaha ku hareeraysan goobtan. Cabbaar ayaa aanu aamusnayn oo annaga oo neeftuurayna ayaa aanu meesha soo gaadhnay. Caagad biyo ah oo aan watay ayaa aan furka uga furay oo aan dhankeeda u taagay. Jeebkana uga soo saaray 2 xabbo oo ah shukulaatadii aan u waday. Inta ay qososhay ayaa ay igu tidhi. Ileen anigu ma ahi haan iga hootan kale. Oo ay ii soo taagtay xabaddii kale. Hahaha. Hayakeen awalba waan hunguraynayay in aan dhadhamiye. Oo aanu ku wada dhufannay qosol gariir. Cabbaar markii aanu meesha wada fadhinay oo aan wada qosolnay sheekaysanay ayaa ay si kedis ah u aamustay. Wejigeedii farxsanaa ayaa hal mar iska caydhiyey farxaddii oo isduuduubay. Shukulaatadii ay gacanta ku haysay ayaa ay dhabteeda ku tuurtay. Gacanteedii midig ayaa ay ku soo aadisay gacantayda bidix. Faraheeda iyo farahayga ayaa ay isugu sidigtay sidii in ay cabsoonayso. Aniga oo yaaban ayaa ay igu soo durugtay oo ay daanka iga shumisay. Haddana inta ay wejigayga labadiisa daan qabatay ayaa ay dhankeeda u soo jeedisay. Kadib dhanka midig ayaa ay korkeeda u yar janjeedisay, indhahana si tartiib ah isugu dabooshay, bishimahayga ayaa ay ku dhaabtay, dibnaheeda shaqadaas uun loo uumay. Haddana waxoogaa ayaa ay iga sikatay oo booskeedii hore ku noqotay, iyada oo islamarkaas isku celinaysa ilin. Waxa aan weydiiyey waxa ku dhacay. Laakiin waxa ay iigu jawaabtaa uun waxba. Cabbaar ayaa aan ku cadaadiyey in ay ii sheegto waxa beddelay. Waxaa si aanan filayn indhaheeda uga soo daatay ilin aanan garanayn sababta ka keenaysa. Ilin aanan weligay ku arag dhabannadeeda godan. Waxa ay u jeedsatay dhankii qorax dhaca, iyada oo barkan shafkayga dhankiisa bidix. Cabbaar ayaa ay dhankaas ku dhegagsanayd, gacmaheedana afkeeda ku dabooshay, sidii qof ama kaagsan. Inta ay dhankayga isku soo wada wareejisay sidii qof wax xasuustay, ayaa ay igu tidhi, warsame, waxaan rabaa in aan maanta wax kuu qirto. Xilligana xilli kaga fiican garan maayo. Oo ay gacanteeda u soo dhiibaysay dhanka dhabankayga oo ay gacal salaxday. Haye. Ii sheeg gacaliso Khadiijooy. Haye. Si fiican ii dhegayso. Weli ima aadan arag aniga oo si toos ah kuu leh, waan ku jeclahay, aniguna sida oo kale kuma arag adiga oo si toos ah ii leh weedhaas. Oo weedhaasi dhexdeenna ma taalo marka aanu ka wada hadlayno taleefanka mooye. Aniga warsamow, dadka ii lama mid tihid. Adiga ka hor hooyaday uun ayaa aan ku noolaa jacaylkeeda iyo koolkoolinteeda. Oo waa aad og tahay in aabbahay uu geeriyooday aniga oo 2 sano jir ah. Oo ma ogi jacaylka aabbe sida uu yahay. Haddase qofka ii soo labeeya ee aan dhankiisa la iga mari karin waa adiga. Weligay habeen kuma seexan wiil aad xidhiidhi yeelataan ayaa xushmad intaas leeg kala kulmaysaa. Jacayl intaas leeg kala kulmaysaa. Ha u moodin in aan iska kaa ammaanayo ee waa aad iga kasbatay. Wanaagsanaanta aad i wanaagsan tahayna mid aad ku khasaari doontid ma ahaan doonto, ee waa mid aan kuugu soo dhowaanayo. Ileen aniga ayaa ku nool Intaas markii ay dhammaysay ayaa ay laabta igaga soo boodday. Haddana inta ay korkeeda dib u soo yara qaaday oo ay ku beegtay afkeeda dhegtayda bidix ayaa ay si cod hoose ah oo laxan wanaagsani ku lamaan yahay igu tidhi, waa aan ku jeclahay. Hadal aan ahayn aniguba waan ku jeclahay, waa aan iska waayey. Hadalkeedu waxa uu ila noqday sidii in ay i nabadgelyeynayso. Waxa aan iska helay dareen ah in ay Khadiijo ii dardaarmayso. Laakiinse markiiba waa aan ka gilgishay dareemahaas oo isku qanciyey in aan dareemay dareenka u dareemo qofka qof ku xidhan. Oo miyaan ku xidhanayn oo aan ku tolnayn Khadiija? Mooy. Run ahaantii waa markii ugu horraysay ee ay haweenay masaafadaas intaas leeg ii soo jirsato. Laabtayda ku galgalato.
saas oo ay tahayna ma dareemin wax aanan ahayn xasillooni. degaanaansho ay ku dambaysay carruurnimadii ayaa tin ilaa cidhib iqaaday markii ay cadceedu godkeeda sii gelaysay ee dhan walba laga eedaamay ayaa aanu go'aansanay in aanu iska laabanno. kaabadii dugsoonayd ayaa aanu kala soo hinqannay salka oo labadayadii gacmood ee isxigay calaacalahooda isku dhajinnay annaga oo ka xun in wakhtigu sidaas degdega ah isu soo gaabiyo oo aanu dhabbadii cagta saarnay. farxad iyo qosol ayaa gabalkii uu inoogu dumay. aniga oo la dhowlacadayna gunaanadkaas wanaagsan ayaa iigu dambaysay soo jeed. halkani waa buug maqal. waad ku mahadsan tahay inaadna soo booqatay. fadlan ka mid noqo asxaabta ku xidhan buug maqal barta guduudan. guji suulka kor u taagan riix hadaad ka heshay.